waxaana lagu gumaadaana inaan jareernahay waay wax kala maaha. aabbahay suuliya saxiix lagama haayo. arrintan adaa galayo u xiran yahay, adaa maslaxa u galayo u xiran yahay. yaa muslimiinoo noo soo gurmanaayo, dad masaakiin oo jareeraan nahay. waa wiil uu dhalay aabbe macalin cabdikariin bilaal oo si sharci darro ah xabsi ugu jira. ninkii u weynaayaan ahay, waxaa ilmaha ila sawaran aabbahay ilmaha u dhalay waaye. 8 bilood bishaara u dhalatay oo u xiran yahay. nin la yaqaano oo muctarafana waa yahay. qalinuu nagu soo koriyey, ninka u weynaayaan ahay ilmihiisa. jeestou nagu soo koriyey. qof alla qofkii rabtaa taqaan. nin dulmiloowa ma aha, nin askulusta ma aha, nin balwadla ma aha. ilmahaas ninka u weynaayaan ahay. waxa gadaashayda taaga waa hooyooyinkaygii iyo eedayaalkaygi waaye. ilmaha meesha taaganna waa ilmihii u dhalay. laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy. muslin ma jira miyaa? noo soo gurmada ma jira miyaa? hal qofoodaa naga bixi kartaa, xerigaas naga dayi karto. meeshaasaan ku nool nahay, intaanoo xaasa, intaanoo ilmaha amba walaalihiisa asigaa ka wakiil ahaa. waxaana lagu gumaadaana inaan jareernahay waay wax kala maaha. aabbahay suuliya saxiix lagama haayo. arrintan adaa galayo u xiran yahay, adaa maslaxa u galayo u xiran yahay. yaa muslimiinoo noo soo gurmanaayo, dad masaakiin oo jareeraan nahay. baadna markaan baxno qutulyoonkaan ugu filanaa soo shaqaysanaa. wax kaloo meel loo dhigma male, hanti ma lihin, xoolo aan leenahay male. dadka islaamka waxaan ka rabnaa inay wax noo qabtaan. macalin cabdikariin bilaal oo ku magac dheer macalin b oo ahaa bare iskuul waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala gobolka shabeellaha hoose, waxaana loo haystaa lacag dhan 120,000 oo dollarka Mareykanka oo aan ahayn qaan lagu leeyahay. dembiyay gelinaa loo dilaa, dembiyo usu shaqo ku leheen. macalin bii tuug ma aheen, dalaal ma aheen, nin muslin ah la jecel yahay, xaafadda laga jecel yahay, ummadda jeceshahay, macalin iskool ah, meel kasta laga yaqaano. oo hadda xataa madaxweynihii oo horeeyo ninkii la lahay sheekh shariif iyo usoo xataa iskool ay la dhigi jireen. nin caan ah waaye, tuug ma ahan. 8 bilood oo ilmihiisa ka maqan yahay oo meel ku xiran yahay, xoogoo ku xiran yahay maahine sharci kuma xirna. 120ka ma cunin, shaqana kuma laha. muddo 8 bilood ayuu ku jiraa xabsi lagu tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah, maadaama maslaxad uu sameynayay darteed loogu soo dalacay lacagtaasi. sideed bilood ay maqan yahay dadka muslimiinta ee waxaa ku codsanaynaa aabbahay inay noo soo daayaan. carruurtii uu dhalay macalin cabdikariin ayaa waxaa la soo gudboonaatay nolol xumo aad u liidata, maadaama aabbahood oo udubdhaxaad u ahaa nolosha qoyska, waxaana ay naawilayaan in mar kale ay la midoobaan aabbahood. mid ka mid ah ardaydii uu wax soo baray macalin cabdikariin ayaa ka sheekeynaya shakhsiyadda barihiisii iskuulka. aniga waxaan halkan ka caddaynayaa markee cabdi bilaal inuu macalin iskuul u ahaa 1976 ilaa alaan ilmahayga uu sii dhigo. nin xoogsataa oo xooggiisku noolna inuu ahaa waa caddaynaynaa. inuu nin muxsin oo masaajidka ka bixin, jamaacada salaad subax iyo mid uu adagba nagala qayb qaato dhibaatada ka dhacdo deegaanka ama xaafaddana ninka u horeeya inuu ahaa. waan ka xunnahay, maqaadiir way dhacdaa. dadka gacanta ku hayo oo islaamka ah iyo dadka walaalaha oo haddana maqlayo, waxaan gaarsiinaynaa inuu cabdi bilaal u baahan yahay xurriyaddiisa ee qof kasta loo baahan yahay inay soo garab istaagto. dadka deriska la ahaa macalin cabdikariin ayaa qiray wanaaggiisa iyo xushmadda uu ku lahaa xaafaddii uu deganaa. annaga cabdi bilaal deriskiisii xaqeed baana waxna uma qaban karno. murugo iyo hurdana waa la hurdi weynay, ilmiina waa la murugoonnay. annaguna wax ma qaban karno, xoolama haysano. dhiikar waa qabaa, waa nin iska wuxuu ahaa biilkiisa iska raadsado oo macalin maamuro iskoolaho iska shaqaysto oo biilkiisa qalinkiisa reerkooda dhan ku biili jiray oo ka kooban 100 qof isaga biili jiray uguna weyna. qoyska cabdikariin bilaal
ayaa sugaya gacan bini'aadannimo oo kaga timaada cid kasta oo gacan ka geysan karta soo deysmada iftiinka qoyska si mar kale ay u arkaan noloshii quruxda badnayd oo ay ku wada noolaayeen iyaga iyo aabbahood. nin jaamici oo waddanka dhan la socdo xaaladiisa og oo meel walba laga yaqaano waaye waxaa loo haystaa lacag $120,000 oo baad ah oo doolarka Mareykanka ah. waxaan idin sheegaynaa walaalayaal inta muslimiinta ah oo muslimiinta jecel inay na garab galaan lacagtaas iyada 10 sano hadda dib u dambaysan ma bixin karin. walaalkay cabdikariin bilaal xaaji cabdullaahi xaaskiisii weynayaan ahay muddo 8 bilood ah islaax uu xiran yahay islaaxiyo meesha kula xiran yahay muddo soonka dhexdiisa halahana uu xanuunsan yahay walaalayaalo aniga wax ma haysana ninkaas in nool soo deeyaan u baahannahay anigoo ah muuse bilaal xaaji oo macallin bii walaashiis ah oo 8 bilood naga xiran yahay asaga iga mas'uul ahay halahan uu naga xiran yahay dhib iyo qalalaas ku jirno mihiisa iyo anugu dhib iyo qalalaas ku jirnaa walaalayaal waxaan rabnaa in noola soo gurmada oo islaamnimo noola fidiyo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.